turkiga in ka badan 1 milyan oo xafiday kitaabka Ilaahay madaxa arrimaha diinta ee Turkiga ayaa shaaciyay in 81 gobol oo Turkigu ka kooban yahay laga bilaabayo dowrad fool ka fool ah oo lagu xifdinayo Qur'aanka Kariimka 679 dowro oo ay ka howlgali doonaan 6839 bare ayna wax ku baran doonaan 71437 arday inta lagu guda jiro xagaaga sanadkan sidoo kale waxa uu tilmaamay in 12,000 oo arday bilihii la soo dhaafay ay kamileen xifdinta Qur'aanka Kariimka waxa socda dowraadka Qur'aanka ee iskaashiga iskuulada taa oo la jeed ku yahay in lagu xoojiyo xirfadda tacliinta bulshada dhaqanka ciyaaraha iyo kordhinta akhlaaqda ardayda kuwa oo doonaya si wadida waxbarashadooda iyo inay xafidaan Qur'aanka iyagoo qaadan doono 233 koors intaasi kaliya ma ahan ee Turkiga ayaa qaatay barnaamijka ku celceliska iyo naqtiinka si loo xoojiyo xifdinta Qur'aanka Kariimka Almaaniyada xaq jirka oo Turkigu qaatay 1923 kuma ayna guuleysan in shacabka Turkiga ay ku hor istaagto barashada kitaabka Ilaahay masaajida Turkiga waxay kor u dhaafayaan 184,000 oo masaajid kuwa oo xambaarsan taariikhdii iyo xadaaradii Islaamka ee ay hogaaminayeen Turkidii hore masaajidan dalxiisayaasha kaliya ma soo jiitaan waxay sidoo kale xarumo u yihiin arday isugu jiro gabdho iyo wiilal oo doonaya barashada Qur'aanka Kariimka xalqooyinka Qur'aanka ee la bilaabay waxa ay u furan yihiin dhammaan da'ada kala duwan sida 7 jir ilaa 70 jir isla markaana lagu bixinayo lacag la'aan casharada lagu qaadan doono kuma koobna xifdinta kaliya ee waxa si dheer tajwiid tafsiir iyo fiqhiga islaamka madaxa arrimaha diinta Turkiga ayaa daahfuray mashaariic tiro badan oo ugu tala gashay inay ku caawiso muwaadiniinteeda sidii ay ku baran lahaayeen Qur'aanka Kariimka tirada xufaadda Qur'aanka Kariimka ee guud ahaan Turkiga ayaa gaartay 1,100,000 oo xaafid